هداي هاي أبو باللوضة هذا هل ساعد أبو سعدة هذا ما مغليسان خاصنا ما أعرفنا هيا مرك حاجة كسعودة دريانكي يغرف دريانكي يقرأ هي يقيقة وانا رجنا حبدا كهاي نايس بس أنا مغلينا خليته واقف مرك ما هذا نعمة كسعودة أودي نعمة magaalada hadda dad fuul baqdaa waa la kala cararay oo eega anaga qof xalayta dhashay iyo duqi iyo meelii taagan meel oo magaalada ka waa gartiyaa jooga meesha oo aad ku haray ninna kuma harina wala iskaga kala cararo haye markay booliska maxal dhinac ka soo wareeraysan laba dhinacba ma magaalada hoosteeda xagga tukadkaana uu ka dhici kor oo maxaan ku dhahay xagga gabaldhacaana way ka dhici waa gartay marka ma wali halkeeda ay taagan tahay wax la isla cararay wax meel u dhaqaaqay baa jira ana isla cararayaan baan u malaynaa intuu marka hore karkaa uu ka dhacayay oo karkaas uu ga dhacayay haddana eegadan hoos qiiqo ma maqlayno qiiqo ma maqlayno magaalada dukaasaad bay naga tahay xagga dukaasaadka eegayay naga maxaad leediin ma nimanka yalla jabiyo misane liu police lama sheegi karno qiiqda iyo balaada soo wareegi ma aragnaa hadde telefoonna kuwa hadli mayno ismana aragnay ma sheegi karno magaalada maxaa ku dhacay mise way ka shishaysaa wallahi ma sheegi markaan saaca ka soo dhaqaaqnay ayaa lagu bilaabay oo abiilkii soo carro mana horey ma xigta u soo galay buurta yar waa ka hooseysa ma waan ka hooseeyaa buurta waan ka hooseeyaa mashaar waadiyaarkii buurta waan ka hooseeyaa bas waayahay ninkii eega buurtan aad ka hooseysay iyo anuu halkan joogo ayuu inoo dhexeeyaa waxa weeyaan aagaagaas wax alla wax ka baxsan kara ma jiro haddana ha xidho wuu inagu dhow yahay aagan inteen inoo dhexeyso joogaa ma garad waan gartaa haddana aan ku siiyo baad xidhan dileer kulan wacan daawadayaal meel waliba aad joogtaan ku soo dhawaada xoogii u dambeeyay dagaalada ka socda xadka Itoobiya iyo Soomaaliya kaas oo u dhaxeeya xarakada Al-Shabaab iyo liu booliska sidoo hore ku soo daawateen maamadii ka hadlaysay kuna sugneed goobaha ay dagaaladu ka socdaan ayaa waxa ay sheegtay in ay barakaceen dadkii deegaanadaasi halkaasi waxa ka dhacay xasuuqyo aad u waaweyn ciidamada Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidanka liu booliska ayaa isku hor fadhiya fadhiisiimaha ay xadadka ay wadaagaan sidoo kale kooxda xarakada Al-Shabaab ayaa gudaha u gashay deegaanada iyo sidoo kale degmooyinka halkaasi ka agdhaba waxaana la sheegayaa in ciidamada halkaasi ka dhaba ay gabi ahaanba isaga holeeleen goobihii ay ku sugnaayeen xarakada Al-Shabaab ayaana ka dhex dagaalamaysa dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan xadadka deegaanada iyo degmooyinka halkaasi ku agdhaba waxaana la soo sheegayaa in halkaasi uu ka jiro khasaaro aad u weyn ciidanka liu booliska ayaa iyagoo waxa la arkayay sawirro foolxumo badan laga soo bandhigayo sidoo kale waxaynu arkaynay Al-Shabaab oo sheegatay guulihii ugu waaweynaa in ay ka gaareen ciidanka liu booliska madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa isaguna waxa uu maanta booqasho ku tagay furimaha hore ee dagaalka walow ay ciidamada booliska iyo generaaladu ay sheegayaan in ay iyagu ay guulo waaweyn ka gaareen sidoo kalena fadhiisiimihii ay horay Al-Shabaab ula wareegeen ay gabi ahaanba ay iyagu la wareegeen waxa ayna sheegeen in wali kooxaha argagixisada Al-Shabaab ay ku dhex jiraan qaybo kamid ah deegaanada sidoo kalena ay iskuweero ay ka qabteen waxaana la soo sheegayaa in halkaasi oo dagaal xoogan ka dhex bilaabmay isla cawada dadkii halkaasi ku sugnaa ayaa gabi ahaanba isaga barakacay waxaayna qaarkood sidaad soo aragteen ay sheegeen in ay isaga hululeen goobihii ay deganaayeen sidoo kalena ay u carareen goob amni ah iyagoo waliba ka cararaya dagaalka ee ka dhex qarxay labadan dhinac ee Al-Shabaab iyo sidoo kale liu booliska waxayna sheegeen in ay ku dhex dagaalamayaan shacabka dhexdooda sidoo kalena ay xabaduhu ay soo gaarayaan gurihii ay deganaayeen dadka rayidka ah weerar xoogan ay maalinnimadii shalay ahayd waxa soo qaaday kooxda argagixisada ee Al-Shabaab waxayna ka soo talaabeen xadka ay la wadaageen Soomaaliya ee Bakool iyagoo u soo talaabay xadka Itoobiya halkaasina waxa ku sugnaa ciidamada Soomaaliyeed ee liu booliska halkaasi oo ay iyaguba si lama filaan ah kaga war heleen weerar xoogan oo xabadihiisa wata oo isdawamarin iyo sidoo kalena
weeraradaasi ay soo qaadayeen xarakada al-shabaab. isla markiiba kooxaha al-shabaab ayaa gebi ahaanba waxa ay barakiciyeen ciidamada liyu booliska oo markii horeba aynu filanaynin weerarkan, waxayna la wareegeen xadka Atayo iyo sidoo kale xadad kale oo kala duwan ay ku sugnaayeen ciidamada liyu booliska. balse kadib ciidamada liyu booliska oo dib u gurasho xoogan sameeyay ayaa iyaguna weerar kale ku soo qaaday xarakada al-shabaab kadib markii ay la wareegeen xadadkaasi, waxa ayna gebi ahaanba ay kaga saareen goobihii ay al-shabaab haysteen. dib ayayna u qabsadeen xadadkii ay horay uga baxeen ciidamada liyu booliska. balse ciidamada liyu booliska oo gargaar xoogan isla markiiba ka helay ciidamo ay soo direen dowladda ayaa halkaasi waxaa yimaaday ciidamo aad u tiro badan, balse xarakada al-shabaab qaarkood ayaa dib ugu laabtay xadkii ay kasoo laabteen ee kasoo tallaabeen aan iraahday. sidoo kalena qaarkood ayaa gudaha deegaanada u galay, waxaana la sheegayaa in ciidamada liyu booliska ay gebi ahaanba square ay ka qabteen, sidoo kalena qaarkood ay xarakada al-shabaab ay ku dhex jiraan deegaanada ayna ku dhex dhuumaalaysanayaan. waxaana haatan baa la sheegay in ciidamada liyu booliska ay gebi ahaanba ay iyagu haatanba ay la wareegeen, sidoo kalena xadka ay iyagu hayaan. waxaana la sheegay in qaarka ka mid ah ee al-shabaab ay ku dhex dhuumaalaysanaya deegaanada ay gebi ahaanba isaga soo baxaan halkaasi. sidoo kalena waxa uu sheegay generaalkii ciidamadaasi hogaaminayay mar uu hadlayay ayaa waxa uu sheegay in ay gebi ahaanba ay qaybihii laga baxayay lagana soo galayay ay iyagu ku sugan yihiin ciidamada liyu booliska, ay haatanba inta ka hartay xarakada al-shabaab ay si nolol ah ay ku qabani karaan, ama haddii kale ay isa soo dhiibaan ou baaq ugu diray. haddaba markii dagaaladaasi xoogan ee dhaceen, isla markiiba waxaa la jaray isgaarsiinaysay Soomaaliya iyo sidoo kale tan Itoobiya, waxaana halkaasi ka cadaatay in aynan la sheegi karin waxyaabaha halkaasi ka socdo, sidoo kalena la heli karin warar xaqiiqooyinka ku saleysan. walow dadka abraha bulshada ka hadla ay wali sheegayaan in dagaaladu ay ka dhex socdaan deegaanada dhexdeeda ayna ka dhex dagaalamayaan xarakada al-shabaab, balse arintani ayaa noqonaysa mid aanan la xaqiijin karin, maadaama halkaasi ay ciidamada liyu booliska sheegeen in isgaarsiintu ay jaran tahay, sidoo kalena laga heli karin xog xaqiiqada ku saleysan. balse goobtaasi oo ay booqdeen wariyaal ayaa fiidiyoyo ay kasoo duubeen generaaladii halkaasi ku kala sugnaa, waxa ay sheegeen in haatanba uusan wax dagaala halkaasi ka soconin, sidoo kalena qaar ka mid ah xarakada al-shabaabna halkaasina ku dhex dhuumaalaysanayaan, balse ay dhifeysyo ku jiraan, aysan weli aynan bilaabin dagaalo ama weeraro ama sidoo kaleba xabado aysan ridaynin. haddaba waxaa lasoo sheegayaa in ciidamada liyu booliska aysan jirin wax dhibaato weyn oo soo gaaray ama khasaare nafeed iyo sidoo kale khasaare dhaabacyo xoogan, balse waxaa la xaqiijiyey in xarakada al-shabaab ee halkaasi kasoo talaabtay ay la kulmeen jawaabkii ugu badnaa uguna xoogana. waa tahay saaxiibayaal, intaasi aynu kusoo gabagabeyneynaa war waxaynu idinkaga haynay guud ahaan. intaan warkan war lamid ah ku kulmi doona. wassalaamu calaykum waraxmatullahi